وحساك كبل عبمي بروسلس حرمتها midowga Yurub shirweynaha Soomaaliya lagaga hadlayo arrimaha horumarinta Soomaaliya dhinacyada amniga dhaqaalaha siyaasadda loo dhan yahay iyo ka soo kabashada abaaraha iyo waxyaabaha la midka oo ku xusan qorshaha qaranka ee madaxweyne qaranka iyo siyaasadihii madaxweyne Farmaajo lagu doortay shirkaas oo ay wada martigeliyeen midowga Yurub magaalada Brussels ee dalka Belgiga iyo Sweden waxa uu furmay saaka qaybtiisii hore waxaana ka soo qayb galay wadamo fara badan oo caalamka ah waxa ka soo qayb galay hay'adaha caalamiga ah ee nala shaqeeya bangiga adduunka IMF iyo hay'adaha lacagta adduunka dhamaantood waxa kale oo ka soo qayb galay wadamada jaarka aynu nahay wadamada ciidamadu ka joogan Soomaaliya qaybtii hore waxa laga hadlay siyaasadda loo dhan yahay oo laga hadlay doorashooyinka 2021 dhamaystirka dastuurka iyo dib habeyntiisa dhamaystirka xeerarka doorashooyinka ee suurtagelin kara in doorasho xor ah oo hal qof iyo hal cod ay dalka ka qabsanto iyo arrimaha amniga oo si weyn looga hadlay iyo sidii ciidamada Soomaalidu ay u awoodi lahaayeen in ay la wareegaan amniga qaranka oo iyagu ay hantaan in ay dalka mas'uul ka noqdaan shirkaas oo si weyn looga soo qayb galay saaxiibadeena ka soo wada qayb galeen iyo wadamada aynu jaarka nahay saaxiibka nahay wadamada caalamka ee waaweyn waxa xoog lagu saaray doorashooyinka 2020 iyo sidii uu qabsoomi lahaayeen marnaba ma jirto ku talagal ah in muddo kordhinaysinaba ay u timaado aragtida sidaas iyo fikirka noocaasana ma aha mid qorshaha qaranka iyo siyaasadda loo dhan yahay ee lagu socdo iyo qorshaha siyaasadeed waafaqsan waxaan fulinaynaa ku talagalkaas shirkaasi si fiican buu u dhacay qaybtiisii hore maanta ayay socotaa waxaan berita gali doonaa qaybta weyn ee shirka ee madaxda caalamku isugu iman doonaan oo uu furi doono madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa kale oo shirka ka dhacay oo barbar socda shir doceed looga hadlayo barakacayaasha qaxoontiga iyo xilal halmaala iyo ganacsatada Soomaaliyeed iyo doorka private sector-ku uu ku leeyahay horumarka dhaqaalaha iyo sidoo kale haweenka amniga doorka ay ku leeyihiin iyo dhalinyaradu shirku si fiican buu u socdaa maanta ilaa berri buu socon doonaa guul baan ku dhamaanayaa insha Allah waa mahadsantiin intaas aan ku soo koobi